كنا مدحونا مانتا وشرف وتاريخ وهرمر وإسبدل وقول قرن وحين انت أصلا وقول مهلق إن إلهي سبحانه وتعالى إلهنا بدقليو دولة نمو يهرمر بين السي فرصة المانتا مدحونا وحي كسو بيق ميساه إذا عدقونا وصدي عبد الرزاق يا حسين عبد الله الدقسي برتنا أي كشيء شنية سديت سنة جرزان السابع دوان ومناسبة وانا نوخ من دونه مدحوني برنامج كان وحنو تشعل هاي إنه ستة صوفر ممركز هذا الكقشون قاب غفر ميانا وقاب كدوان قابك هنا المناسبة ده اللي فرج وهذا في شرح halkan waxaa jooga wasiirkii caafimaadka oo muddadii wasaaradda uu joogay iyo intii aan joogayba barnaamijyada ka baxa raadiyo Hargeysa marka laga yimaado barnaamijka su'aalaha iyo diiniga barnaamijka labaad barnaamijka caafimaadku yahay waa barnaamijka loogu dhageysiga badan yahay waana barnaamijka ugu su'aalaha iyo jawaabaha badan sida barnaamijka Sheekh Dirir dariiqa toosan barnaamijka waxa ka faa'iideystaa guud ahaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxayna hab toos ah su'aalaha u soo weydiiyaan dhakhaatiirta hadba lagu soo marti qaado oo wasaaradda iyo wasiirkuba ay ku mahadsan yihiin inay nagala shaqeeyaan waana ugu mahadnaqaynaa arrimaha xuquuqul insaanka waa ka Cabdirasaaq ka hadlay arrimaha bulshada iyo xuquuqul insaanka oo soo siyaalada wasiir Milgo hadda waxaanu iyadana qorshaha fariimaha dastuurka marka laga yimaado aanu doonaynaa inaanu barnaamij weyn la samayno wasaaradda dastuurka oo maadaama wacyigelintii dastuurka iyo qaranka u qaabilsan tahay in dadka aanu ku hagno hab qarannimo ah oo barashada dastuurkooda iyo daljacaylkooda oo wadaniyadda ku lug leh taasina ilaahay idinkiisa uu hirgeli doontaa madaxweyne wasaaraddan magaceedu waa wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka waxaan doonaynaa jihooyinkii ka horreeyay ka duwan inaanu ku wadno annagoo ka duwanayna siyaasadda adiga madaxweynuhu dalkaad ku hogaaminaysaan ee ah ahaanshaha bulshada midnimadooda wadajirkooda iyo horumarkooda taasay ku salaysnaanayaan barnaamijyada wacyigelintu meel lagu dhiso aqliga aqoonta qarannimada karaamada ummadda qabka wadaniyadda daljacaylka qabiil nacaybka qaadla dagaalanka barnaamijyo noocaas oo xitaa heesaha ka bixi doonaa kuwa ka hadlaya wax wada qabsiga beeraha caafimaadka biyaha macdanta hoosteena ku jirta si looga soo bixi lahayn noqoto madal aqoon loogu yimaado wacyigelin loogu yimaado dhaqan suuban loogu yimaado maadaama state media hayta madal cid looga jawaabo ama cid lagu canaanto ama lagu dhaleeceeyo inaan noqon waa siyaasadda aanu doonayno mustaqbalka dhow inaanu ku samayno madaxweyne barnaamijka waxa uu sharafa maanta wasaaradda warfaafinta iyo shirkadaha kala qayb qaatayba maadaama guul weyn qarankii gaadhay oo guul ictiraaf xukuumadda iyo madaxweynuhu keeneen iyadoo haddana ciid weyn oo tii ilaahay ina siiyey oo ciid carafaa iyo ciid kale oo laba ciidood ay saaran oo xuskii ay dhiinmay maalinta qaran ah inay shacabka Soomaaliland gobol kasta oo ay dalka ka joogaan ay fursad u helayaan inay ka dhageystaan moobiladooda gacanta iyo magaalada xuska ay dhiinmay iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waayo laantood markan aanu taabanayno may qabsoomeen madaxweyne wasaaraddeedu waxay kaga duwan tahay wasaaradaha kale team work baanu ku soconnaa agaasimo waaxidada oo dhani waa dad aqoon ku hubaysan barnaamijka soo saarayaasha agaasimaha TV-ga agaasimaha idaacadda agaasimaha shaqaalaha agaasimaha maamulka iyo maaliyadda xisaabiyaha ilaa inanta shaaca noo karaysaa madaxweyne team work baan hal team baanu nahay kooxda fanaaniinta meelaan ku kala maqanahay ma jirto marka walaalkay wasiir Muuse iyo agaasime Cabdisalaam waxaan uga mahadnaqayaa
muddadii wasaaradda aanu joognay inaanu si wanaagsan ilaahayna nagu garab galay niyad wanaaga niyad samiya annagoo siyaasadii adiga iyo madaxweynuhu dalka aad ku hogaaminayseen ku wada soconnaa inaanu qaadanay inaanu janalka horumarka aanu u jihaysano oo shaqooyinkii noo yaalay ka badan muddo kooban aanu ku fidino waxaanu ka filayaa wasaaradaha kale duulduul baa xagga malaha madaxweyne xafiisyadiina soo gaaree inaad isqabsiga wasiir ku-xigeenka iyo wasiirka iyo agaasimuhu ay moodhal noqdaan wada shaqeeya oo fuliya siyaasadda xukuumadda ilaahna waxaa ka rajeynayaa annagoo mid ah inaanu wada soconno guulo badanna gaadhno